بسم الله الرحمن الرحيم وبرنامج كأني دين تأيدونيدا حلقة دي سي تضبط ما أنتم حنكون افتهمين إن حلقة شورى دا هي الديمقراطية دا فرق أول حياة شورى ومبدأ إسلامي شورى وعقيدة شورى ورقن شورى وسلوك وأنا منهج دين الإسلام كي أدجسي ضدك مسلمين شورadu waa wada tashi waa in laga arinsado umuuraha muslimiinta ah midda guud iyo midda caamka ahba ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanka kariimka abu meelo kala duwan uga hadlay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu uga hadlay arimaha faamilka iyo qoyska markuu ka hadlayay inay ka wada tashadaan umuurahooda Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay suuratul baqara فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما يعني آبها هويدا هدي دمعان إنay wiilka yarka ah ama cunugoodu ay naaska ka joojiyaan raali iskaga noqdaan ka wada tashadaan wax dhiba male waqtiga ay ka goonayaan naaska cunuga wuxuu kale Allah subhanahu wa ta'ala uu leeyahay fi surati at-talaq wa'tamiru baynakum bima'ruf markuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka sheekeeyay guriga iyo nafaqada iyo suknaha iyo Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wada tashada oo si wanaagsan oo dhaqan uu ku jiro isku fahma Allah subhanahu wa ta'ala markuu ka hadlay muuminiinta iyo sifaadkooda iyo tilmaamahooda Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay walladina istajabu li rabbihim wa aqamu as-salata wa amruhum shura baynahum wa mimma razaqnahum yunfiqun muuminiintu waxa lagu yaqaanaa kuwa xumaha ka fogaada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ateeca salaada ooga umuurahooda iyo xaaladahoodana ka wada tashada shu'uunta markii la gaaro siyaasadda iyo xukunka iyo nidaamkana Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay washaawirhum fil amri nabi maxamedow kala tasho dadka muuminiinta ah umuurta iyo shu'uuntooda kala tasho marka shuuradu waxay gashaa arimaha dhaqanka waxay gashaa guurka waxay gashaa arimaha qoyska waxay gashaa arimaha siyaasadda arimaha dhaqaalaha qofka muuminka mar walba waxa looga baahan yahay inuu arimihiisa oo dhan wada tashado nabigana sallallahu alayhi wasallam dhaqan bay u ahayd inuu dadka la tashado saxaabadiisa la tashado waatiina xadiiskii saxiixa ahaa uu lahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam waa qofka ugu badan oo bil aadan ahaa oo dadka la tashan jiray umuurihiisa oo dhan buu nabiga sallallahu alayhi wasallam kala tashan jiray dadka muuminiinta marka waxay faran yihiin in umuurahooda ay ka wada tashadaan kadibna Ilaahay subhanahu wa ta'ala istikharo ay weydiistaan wada tashigu marka مبدأ وقاعده أما واح أساس ولا جدوله مبدأ كاستمرك وحو بهنيه إلا النظاميه إن سيستم لو سميه أما حبدقا لو سميه إجراءات يتولس شورده مركا ومبدأ لكن تولس كي لراعي لها أما ودوين كي أما طرق دي أما آليات كي دينتي أن النوم أيسان تجن إلهنا سبحانه وتعالى قرآن كريم كان نوغما شيغين نبينا صلى الله عليه وسلم نوغما وسن تجين هل طريق وددك آدنها أي كو قسبيهين إنay wada raacaan bal subanaha wuxuu uga tagay ijtihaad iyo hadba duruuftooda si muuminiinta u qabato inay isku dhaqaan ay u wada tashadaan wada tashigu marka waa mabda wuxuu u baahan yahay aaliyat wuxuu u baahan yahay asluub ama wuxuu u baahan yahay wasiilad ama wuxuu u baahan yahay wada la raaco khutuwaad ama steps buu u baahan yahay shuuradeena marka mabda islaamiga ah ma lahan tuuliska noocaas oo kale taa waxa loogu talagalay marka in aadanuhu ayaga ay ku ijtihaadaan hadba xilliga ay joogaanna wax munaasib ku ah ay la yimaadaan subhanahu sallallahu alayhi wasallam markuu geeriyooday muuminiinta ugu muusan tagin qof uu yiri asaga ha idin maamulo ama qof uu maartay kala taliye ma jirin saxaabada ayaga isku yimid way ka wada tashadeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu waafajiyay Abu Bakar radiyallahu anhu inay doortaan Abu Bakar markuu geeriyooday wuxuu tarshiixiyay ama rashaxay Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu Umar bin al-Khattab markuu geeriyoon rabay wuxuu sharaxay 6 saxaabadii kamid ahaa sidaas ay marka u socotay shuuradii xilligii khulafaa ar-raashidiin kadib waxay isku bedeshay nidaamka islaamka oo siyaasadda ah mid dhaxaltooye ah nidaamkii marka iyo mabda'ii shuuradahana wuu soo gaabtay xagga ama uu ka soo yaraaday dhinaca dawladda markii la fiiriyo laakiin wuxuu aad uga muuqday dhinaca bulshada iyo dhinaca dadka muslimiinta ah awqaafta iyo masaajidda iyo fuqahada
shuurada aad iyo aad baa looga dhaqmi jiray wayna ka dhex muuqatay dhexdooda. laakiin levelka ama nidaamka dowladda markii la yiraahdo shuuradu way ku yareed, dhaxaltooyo iyo dhinacaas u badatay. taana waxay keenaysaa inuu bato istibdaadka ama dictatornimada iyo in dadka maaragtay la cunaqabateeyo oo maaragtay afka laga xiro. marka shuuradu waa mabda muhiima oo asaasi ah. ilaahna subxaanahu wa tacaala suurad dhan oo suuradaha qur-aanka buu wuxuu u bixiyey suuratu shuura, suuradda 42 oo qur-aanka kariimka ah. ilaahi subxaanahu wa tacaala uu kaga hadlaayo ahamiyadda ee leedahay midnimada iyo in kelmadda muslimiinta la mideeyo. wuxdada marka islaamka waxay ku xiran tahay inay dadka wada tashadaan. waana aayad ilaahi subxaanahu wa tacaala suuratu shuura uu ku yiri والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. شورى هو مبدأ لكن وحو بهن تولسكي إيقابكي لوغو هشين لها وحال يلكو هشية نظامك اسكو معموليسان سيدا اوغو هشينا نظامك اسكو معمولينو سيدا او دورنا مدحوينها يا مدحوينها دورايا يا مدحوينها الله حساب تمايا مدحوينها شقديسو محي نقونيسان yaa mujtamaca ka noqonaya wakiilo mise mujtamaca Suudaan iyo hada mujtamaca Soomaaliya oo kale oo 15 milyan ama 20 milyan meelahaas kulligood ma waxay ka wada tashan karaan umuuraha caamka ma ka wada tashan karaan. waxay u baahan yihiin cid matasha dadka matalaya seen noqonayaan yaa dadka soo dooranaya shaqadooda maxay noqonaysaa. waa baabka islaamka uu bixiyay ahlul hal wal aqdi xalaqada damaan insha Allah taala ku faahfaahin doona. umuurahaas oo dhan marka waa umuuro tools ah iyo asaaliib ah ama aaliyaad. shuuradeenu ma lahan. shuuradu marka waa mabda muslimiinta ayaga waxay ka gaabiyeen meelaha runtii aan aad uga gaabinay ka mid tahay in shuurada la dhiraandhiriyo, la qodobeeyo, la taqniiniyo, tools iyo ijraa'aad iyo process loo bedelo. waxaa ku timid dimuqraadiyadda. dimuqraadiyadu waa kelimad ama waa mustalax igriiqi ah ama Greece laga isticmaali jiray wadankan Greek loo yaqaan. kadibna ay isticmaaleen dadkan Kristanka ah, kadibna ay isticmaaleen dadkan hadda reer galbeedka ah. asagu waa nidaam iyo mabda isku dhex jira. waana mabaadi' buu leeyahay, tools iyo aaliyaadna uu leeyahay. sida shuurada ay mabda u leedahay bay dimuqraadiyadana mabaadi' u leedahay. laakiin waxay dheer tahay shuurada tools iyo waxay leedahay adawaad iyo maaragtay wax process oo dadka ay isticmaali karaan. mabaadi'da marka dimuqraadiyadda mabda ugu weyn oo shariicada islaamka ka hor imaanaya oo u dhaxaya farqiga u dhaxaya shuurada iyo dimuqraadiyadda ah ayadoo furuuqyo badan la soo saari kara. laakiin waxa ugu muhiimsan aan intaan akhrinayay hal qodob. waa qodobka marka dhahaya bini'aadanka ayagaa naftooda xukumaya, ayagaana sharciga isku xukumi lahaayeen wada dejinaya. marka masdarka tashriica dimuqraadiyaddu waxay leedahay waa bini'aadanka ayagaa waxay rabaan xalaaleynaya, waxay rabaan ayaga xaaraamti yeelaya. shuuradu sidaas ma ahan. ilaah baa subxaanahu wa tacaala xukunku iska leh, ilaah baa subxaanahu wa tacaala tashriica iska leh, ilaah baa subxaanahu wa tacaala wixii xalaala iyo wixii xaaraama ilaah baa subxaanahu wa tacaala xukumaya. in alxukmu ila lilah. tashriica iyo taxliilka iyo taxriimka ilaah subxaanahu wa tacaala baa iska leh. laakiin awoodda doorashada iyo awoodda raali noqoshada shacabka iska leh. taa shuuradana way qabtaa, dimuqraadiyaddana way qabtaa. dimuqraadiyadda marka waxay leedahay tools iyo adawaad. qaabka madaxweynaha loo dooran lahaa, shuruudaha lagu dooran lahaa, waqtiga madaxweynaha uu xilka heenayo, in xilka si nabadgelyo ah la iskugu wareejiyo, la xadido xilliga ama muddada uu madaxweynaha xilka heenayo, doorashooyinka, nidaamka xorriyaadka, qaabka maalka caamka ah oo muslimiinta loo ilaalinayo, qaabka loogu xisaabtamayo, sida power sharingka loo sameynayo. tools badan bay leedahay. laakiin nidaamkeena marka shuurada ah iyo dimuqraadiyadda farqiga u dhaxeeya midna waxa weeye waa nidaamka islaamka oo ilaah baa subxaanahu wa tacaala taxliilka iyo taxriimka iska leh. dimuqraadiyadduna taxriimka iyo taxliilka shacabka iska leh. maanta shacabkanu hadday ku heshiiyaan in zinadu ay xalaal tahay, ay go'aansadaan, baarlamaankooda uu codeeyo, taasaa xalaal u noqonaysa ayaga maaragtay nidaamkaas iska leh. taas waa dimuqraadiyadda iyo qodobkay uga duwan tahay shareecada islaamka. shuurada waxaa marjic u ah shareecada islaamka. shuurada waxaa asaas u ah diinta islaamka. wixii diinta islaamka xaaraan ay ka dhigtana waa xaaraan, wixii xalaal ay ka dhigtana waa xalaal. wixii ijtihaadaada
wixii dadka ay ka tashan karaan, wixii islaamka uu u baneeyay inay bilaadanka hormariyaan way hormarinayaan, waana wax u bannaan, waana wax ay maaragtay samayn karaan. tooliska marka aan kusoo gabagabeeye tooliska ama wasiilada ama maaragtay processka ee dimuqraadiyadda leedahay ma qaadan karaan dadka muslimiinta ah intay diinteeda u xalaalaysa. way qaadan karaan wixii markaa shariicada loo soo bandhigo, haddiiba shariicada aysan diideynin way qaadan karaan dadka muslimiinta ah. bal waxa weeye ilbaxnimada iyo xadaaraadku way kala qaataan, way kala amahdaan waxyaalaha horumarka ah. xadaaro kastana xadaarada ka horeysay ba waxay ka qaadataa wixii wanaaga. diinta islaamka ilbaxnimay keentay, ilbaxnimadeeda meel cidla ah kamaysan bilaabin, ilbaxyo hore iyo xadaarad hore bay wax ka soo qaadatay. wixii saxda ahaa oo wanaagsanaa oo namuudaj ah oo bini'aadanka horumarkiisa ka mid ah way soo qaadatay ilbaxnimada islaamka, waxbay ku biiriyeen. dadka muslimiinta waxay tageen Andalus, ilbaxnimay geeyeen. dadkii ka dambeeyay reer Yurubiyaanka ahaa oo meesha deganaana ilbaxnimada islaamka way qaateen. culumta islaamka wax badan bay ka qaateen, falsafada islaamka wax badan bay ka qaateen. sida dadka muslimiinta ah culumihii hore wax uga qaateen. ibn Rushd oo kale falsafadii Aflaatoon iyo ninkii Aristotle la dhihi jiray waa uu tarjumay, waa uu hormariyay, qodobo badan buu ku daray. dadkan reer galbeedka baa yimid kutubtii ibn Rushd rahimahullah ba waxay ka sii qaateen falsafada. marka ilbaxnimada aadanuhu waa shuclad ummadda kale ay ku sii wareejinayso. wixii wanaaga waa la kala qaataa. waxaa la mid ah nalkan hadda aan isticmaalayno, kaamiradan hadda aynu kula hadlaayo, gawaaridan hadda bilaadanka isticmaalaan, dayuuradaha la isticmaalayo, intaba waxa weeye waa muntij xadaari oo bashari ah. aadanaha waxaas keenay. hal qof oo soo saaray ma jiro. reer galbeedna maysan keenin, gaalana maysan keenin. qof kasta meel buu gaarsiiyey, qof kala ka sii qaaday, ummad kala keentay, ummad kala ka sii qaaday. ummaduhu marka waxa weeye way iskaashadeen. ilbaxnimada hadda adduunka uu marayana waa wax la wadaago way. waxa uu tusaale ah nabiga sallallahu alayhi wasallam minbarka uu isticmaali jiray oo minbarka masaajidka ah yaala waa xadaarada xabashida ama Etoobiyaanka laga keenay. ayaga ku istaagi jiray minbarka. kelmadan mushaf la yiraahdo waa kelmada ay isticmaali jireen Etoobiyaanka. nacsiga oo qofka markuu geeriyoodo lagu qaado oo nacsi hadda aan isticmaalno waa xadaarad ayadana waxay ahayd xadaaraadka hore laga soo qaaday. waxaa la mid ah fikradda khandaqa. nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu Madiina al-Munawwara godka uu ku hareereeyay waxay ahayd ilbaxnimo laga keenay Faris. Umar bin Khattab radiyallahu anhu markii khilaafada islaamka uu hayay nidaamka idaariga ah ama systemka idaariga ah wuxuu ka soo qaatay dadkan Roomaanka ahaa. wasaaradaha iyo dawaawinta waxa loo yaqaan dadkan Furs iyo ka soo qaatay radiyallahu anhum ajma'in. marka islaamka wuxuu dajiyay mabda shura. dimuqraadiyadana reer galbeedkaas isticmaala. waxay leedahay marka mabaadi iyo tools. mabdaeeda qof muslimna ma qaadan karo, waayo waxay ka hor imaanaysaa shariicada asalkeeda ka hor imaanaysaa. ama toolskeeda oo ay kamid tahay doorashooyinka, in la xadido waqtiga madaxweynaha, in madaxweynaha qaab loo doorto, in maaragtay madaxweynaha lala xisaabtamo, in dawladda la muraaqabeeyo, in shacabku ay xildhibaano soo doortaan, in baarlamaanaad la sameeyo, in maaragtay golo wasaarado la sameeyo, in sulutaadka iyo institutionada la kala sooco. waxaalahaas oo dhan waa wax wada tools ah, waa aaliyaad, waa tariiqad ama waa habdhaqan dadku maaragtay u dhaqmi karaan. waa wax wanaagsan in la qaato. magacay u bixinaysa ama dimuqraadiyad baa leedahay. haddaad tiraahdo wax dhiba ma leh, haddaad shuuro tiraahdo wax dhiba ma lahan, laakiin waa wax bilaadanka ay u baahan yihiin, loona baahan yahay dadka muslimiinta inay qaataan. waxaan leeyahay kusoo gabagabaynayaa hadalkayga maanta insha allahu tacaala. dadka muslimiinta ah hadday yidhahdaan dimuqraadiyad baan u baahannahay, ma ahan inay leeyihiin annagaa wax xaaraan ka dhigan ama xalaal ka dhigana. ma ahan inay dimuqraadiyadda mabaadi'deeda ay qaadanayaan, bal waxay kala jeedaan ama mafhuumka ay ka qaadanayaan waxaa weeye toolskeedaan u baahannahay, processkaan u baahannahay, in wixii ijraa'aad loo bedelaan u baahannahay weeye. inta kulan kale aan ka kulmayna waxaan idin leeyahay wa ilaa liqaa'in aakhar. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.